السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga waa aniga waa Caisha Canab. Dad badan oo idin kamid ah ay dhaheen Caasho soo noqo maxaa kugu dhacay soo noqo. Maanta marka waxaan rabaa inaan soo noqdo wax aniga idhibayna inaan ka hadlo ama wax aniga aan markaan fiiriyay social mediaha Soomaalida bulshadeena wax aniga aan isdhahay oh my god waxaan waa inaan iska bedelnaa Soomaali nahnay. Waxaan maanta inaan ka hadlo idin la wadaago fikradihiina iyo idinka u fikradaysiina waxaa jeclaan lahaa inaad ila qaybsatiin qaybta comment-ka wayna bilaabaa. Isn't it lovely? Alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. Maanta arrinka rabo inaan ka hadlo waxaa waayay ubadka markay labada waalid kala tagaan saameynta ku timaada bulshadeena Soomaaliyeed. Waxaa in badan ku yar waalid markay kala tagaan haddana xiriir fiican yeeshta. Calafku markasta wuu dhamaan karaa, guurka markasta wuu dhamaan karaa, laakiin ubadka dartiisa markasta waalid waa inay xiriir yeelan karaan. Okay, haddii waalidka xataa labada waalid oo wax dhaleen hadayna xiriir fiican dhexdooda yeelan karin maadaama xurguf iyo wax soo dhacay dartood ilmaha markas inaan laga goynin reer aabo. Soomaalidana waxaan u badanahay reer hooyo. Ilmaha abti iyo habar yar in badan ay tirsadaan eeda iyo adeer agtooda qiimo kuma laha. taasna waxaa saameynayso labada waalid لأن ayaga mas'uulka ah caruurtii. Okay, qisooyin badan aan dhageystaa hadaa maxay ahayd la socotiin laba qof soo dhigi doona channelkooda inta iyo inta labadan qof qisooyin badan aan ka dhageystaa siiba Abay Farxiyo Tawakal qisooyinkeeda inta badan waa dumar dhibaato soo martay, hooyo dhibaato soo martay. go'aamanka aan la yaabo ee hooyooyinkaas qaataan marka qaar hadda qisada ugu dambeysay aan dhageysanayay waxay ahayd hooyo ilmaheeda nolol adeeg ah u horseedayso xaalad oo waalidka dhalay aabahaas yahay qof lacag leh. intaasna qofkaas waxay u sameynaysaa yaa laga qaadanay ilmahaaga. laakiin marka qaar hooyada inay ka fikirto waaye wax waxaa jira la dhaho ani ama faa'iidadeeda inay marka qaar faa'iidadeeda wax ka fog ay fiirin kartaa ubadkan maxaa faa'iido ugu jirtaa. Okay, waxaa arkaysaa hooyooyin ilmihii la soo qaxayo qaxooti la galayo at the same time waalidka ilmahaas aabaha adeeraha eedooyinka aabaha waalidka dhalay waa dad qani ah ama meel fiican nolosha ka taagan. why aad ilmahan struggle ugu horseedaysa ama dhibaato ugu horseedaysa? why aad uga jaraysaa ilmahan aabahoodii kale? Okay, aabayaal qaar oo aad u xun way jiraan, aabayaal qaar oo ilmahooda u xumeen laakiin adigu ku xumaynayaana jiraan, aabayaal qaar waxaa jira ilmahoodina u xun laakiin eedooyin iyo adeero fiican ay la dhashteen. So adiga marka ka hooyo ahaan ceebay nagu tahay society-geena ama maxay ahayd bulshadeena ceebay nagu tahay reerkii ku furay inaad xiriir fiican la yeelatid ama ilmaha reerkooda in aad xiriir fiican waa ceeb. waxaa la isdhahaa automatically waadan isku dagaalaynin heshiis meesha yaala maxaa waaye automatically waxaa la sugaa buuq iyo qaylo inay labada reer dhex yaalaan, laakiin in la kala tago haddana labada reer wanaag ma dhex yaali karta miyaa? inta badan intaas arkay inay dadkeena ku yar tahay, bulshadeena ku yar tahay, dhalinyarteena ku yar tahay. waana wax loo baahan yahay inaan wacyigelin sameynaa, inaan ka hadalnaa marar badan, in loo fiiriyo. hadda gabar kale waxaa jirta TikTok-ga xaalad adag soo wajahday oo dhehaysa anigu waa la rabaa ilmahan intay dawlad iga qaadan lahaayeen raaqiyaal dhahaa manayna
waxaa jeclaan lahaa ina aabahooda u dhiibo social media dhan waa isla kacday say ugu dhiibaysaa naayaa naa karti badan say ugu dhiibaysaa naayaa naa karti badan iska dhig naayaa dhaxda xiro naayaa ninkaa iska siinin ilmaha why ilmahan yaa dhalay aabahoodaa dhalay waya ilmaha isku lahaysiin idinka waya idinka u malaysiin gabdhaha la hadlooyaa maanta karbaashkayga gabdhaha hooyooyinka oo ku salaysan yahay why aad u malaysiin ilmahan ina idinka leedihiin more than the father aabaha intuu leeyahay ka badan ina adiga leedahay waya iskugu malaysaa anitaas fahmi la'ahay okay adi xaq waa leedahay asigana xaq wuu leeyahay adiga ilaahay wuxuu ku dhahayay 3 mar ee hooyada ka xaq badan tahay aabaha but that doesn't mean inaad ka mas-uuliyad badan tahay mas-uuliyad dhan horta ma ogtihiin inuu ilaahay ilmahan adiga kaa saarin ilmahan mas-uuliyad adiga lagaa saaray waa naaska inaad siisid even naaska xataa abiil uga qaadan kartaa ninka adhigi kartaa niyo miyaha anugu ilmahaaga kuuma biila hadaadan kuuma nuujinay hadaadan ibiilanin that's waxa ilaahay adiga kuu baneeyay intaas ilaahay wuxuu adiga kugu baneeyay waxaa waaye mas-uuliyadda in lagaa qafiifiyo mas-uuliyad inaadan isa saarin hooyooyinkan dhan a arkeeno oo derbiga madaxyaha ku garaacanayo waa hooyooyin mas-uuliyadii ka tambadatay video hadda ka hor aan soo dhigaa jiro anuu oynayo xaaladaas xaalad waxay ahayd adag waxaa la oynayn waxaa waaye mas-uuliyadda naga tambadan iskoolaad aadaysaa ama jaamacad ha noqoto ama any other education ha noqdo waa shaqaynaysaa at the same time caruur waa haysaa at the same time adiga hool kasta isku qabanaysid Soomaaliya waalida kuu joogo oo biilkoodii lagaa rabo gurigan kiradiisii cuntadiisii everything adaa lagaa rabaa ma noolagu talagelin all of that noolama samaynin aniga ilaahay wuxuu noo sameeyey waqarna fii buyuutikunna walaa tabarrujna tabarruj aljaahiliyati alula maxay tahay inaan gurigeena iskaaga nagaadno inaan nolol soft life goal area mal dhihi jira walaal iga saxaani kuma fiicni taasoo ilaahay noogu talagalay run hadii la rabo to ilaahay noogu talagalay waa taas nolosha qabowga ah simtalka ah raaxada ah macaanka ah okay waxaa jirto hooyooyin sida anoo kale ah arkeen okay aniga qurbahana jooga qurbahan hadaa raba inaan ka guuro oo ka dhamaado inaan dhaxda xirto adasay shaqeeyo wax barto ilmo isku haayo ilmahaas diintoodiina baro maxay ahayd lacag aruursado Afrika inaan u guuro ma dhici karto waa wax mustaxiil ah oo garabna meel kale iga soo galaynin okay maxaa bahana inaan sameeyo ilmihiina iska sii hormariyo 2 sano 3 sano ilmahayga qaf aan ku aaminayo inaan u geysto oo dhaho maxay ahayd 2 sano 3 sano soo shaqeysana maxay ahayd lacag soo aruursana waxa Afrika ugu soo guuri karo inaan yani hooyigeen waa Afrika inta isku dhijino qalad waaye okay meeshii aniga aan ka soo askumay ama meel u dhow aan ku soo noqona intaas ku soo noqona ilmiha leego siisino gabdho badan oo waxa arkay taas lagu eedeynayo oo la dhahayo beer adkida sidee adoo hooyo ah ilmahaaga habeen uga seexataa ilmahaaga sidee u dhiibta aniga ilmahayga cadow uma dhiibanin ilmahayga waxa u dhiibtay waalidkooda kale ama hooyaday ay u dhiibto ama ayeeydooda aabba dhashay ay u dhiibtay at least qof aamin u dhiibtay ma soo dayacin ma fahamteen أنا كان بشولي أهان يعني أنا أهان personally وما هذلوي لكن وحنا أركي social media بدبضن اللي قلنا لا يعينا يو محي هواية كنقطي هذه المهي ذا يعيسو أم قف كله تودي بيسو أنا نول سي المهي قف ودي با المهان أذيجا كلجا مدلين مسؤولية ذا كلجا مضح على جام صارين بورصة عمل لجوم دهين أحرنا okay hooyooyinkaas waxay soo korinayaan ayagoo daalan oo isdhahayo nolosha inta ka keen garac samee ayagoo dhahayaan ee waxay koriyaan ilmo oo emotionally unavailable ay ka ahaayeen
aynan emotionkooda la soconin ay koriyaan adoo maqan iyo adoo joogtay same ay u tahay ilmahaas because joogista ayaa la joogtay maadan dhisin ilmihii okay ilmo frustration qaylo iyo maxay ahayd aa kusoo korisay noqonayaan so markaas amayba dhaantaaba ayagoonan ku haysanin oo dad kaleeto kaa degan ay haystaan qayladaadii qababacdaadan ay arkin maalin hadda hooyo waxaa arkayay life ay ku jirtay okay life ay ku jirtaa lifekiiyo mute inay saartay umalaysaa mayna saarin mute inay saartay umalaysaa markaas ilmaheedu inay u tagtay ee waxay u garaacay ee ugu qaylinay maxaa kaa galay for what reason hooyadaas hooshaa ka badatay hooyo xun ma aha ma dhahayo hooyadaas hooyo xun waaye ani I don't label hooyooyinka as hooyo xun iyo hooyo fiican uma label gareeyo aabahana sidoo kale aaba xun iyo aaba fiican I don't label yani shaambad kuma dhajiyo qof kasta wuxuu yahay asaa laakiin hooyadaas xaaladii aa ka tambadisay mas-uuliyad iyada loogu talagelinayay dhex dagaalinaysaa intaasoo ilmood oo kala aaba ah ee iyada kaligood korinaysaa so yani waxay noqon darbigii madaxa ku dhufanaya marka dambe qayladaas ay qaylinayso ilmahaas ay garaacayso ilmahaas marka maxaa qalbigooda galayo maxaa niyadooda galayo we have to inaan fikirnaa marka qaar choiceska qaarka ah ma nafteena darteedan u sameynaa mase caruurteena dartoodan u sameynaa taas inaan ka fikirno waaye hali noqda qad yar ay soo dhex galay marka qaar waa inaan u fikirnaa wax alla waxaa sameynayo hooyo ma nafteeda u sameynooyaa waxaa u sameynaya bulshada inay iga hadlin hadhowta ay dhihiin hooyo xunaa tahay kanaa tahay kaasaa tahay mase ilmahayga dantooda waxaan u sameynaya waa inaa isdhexdid hooyo labo aabo iyo hooyo haddaa kala tagtaan please and please idinka wax kastoo idin soo dhexgalay idinka ahsaabsad yani samaysateen ama sabab u aheedeen ilmihiina fadlan waxaas yay u gudbin cuqdadaas ilmihiina yay u gudbin idinkoo wanaag isku haya haddana ilmaha isla korsada oo aabo wixii adigana lagaaga baahan yahay ilmahaas tala iyo maxay ahayd go-aan markastoo noqo qofkii loogu soo noqdaa hooyo adigana aabihii haddaa kala tagteen xataa noqo qof ka dambeeya oo yay noqonin labada maroodi oo isdagaalo waxay ku baaba-ay meesha cooska waaye iyo sheekada saas naga noqonin wax badan inaan ka bedelno tan aan rajayna biidni illaahi tacaala waalidadana oo maxay ahayd meeshan ku jiro anaka diinta waa iska haysanaa laakiin dhaqankeedii wuu nagu yaryahay runta haddii la rabo for example waxaa la dhahay haddii labada qof ay fahmi waayaan fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ilaahay wuxuu dhahay xakan yani qof oo xakiim ah ehelkeedana kasoo saar ehelkiisana kasoo saar oo dhexdooda fadhiisto oo wixii la isku haayay markaas xal raadiyo we don't do this ani ma arkin meel oo saan ay Soomaalida ku sameynayaan we need to do this more familiyada please and please noqda familiyo ilma ka wada dhaxeeyo uwad ka wada dhaxeeyo aanan kala go-aynin blood baa idin dhaxayso dhiig baa idin dhaxeeyo dhacaan baa idin dhaxeeyo waxaanan weligeed dhammaanaynin aa idin kulmiyo waa inaa iswici kartaan ayayada kale anisaa jeclaan lahay futureka ilmahayga ilaahay hadduu ii weynaysiiyo oo caruur ay dhalaan laa samax allah waalidkaas oo gabadha yani dhalay haddii wiilkayga iyo gabadhaas ay kala tegi lahaayeen aniga waalidkaas saaxiibaa la noqon lahaa gabadha hooyadeeda waa walaashay waa saaxiibtay waa ilmaha ayayada u ahay ayayadood I would be able to call her ووعي لها هيا بايو عادي يعني قرابانا هنا سلة الرحمة بركاس إيسو قلي لها ما فهمتين مركا صوماليي فورين كان بطي إيوه ضيعادان إلمهينا كو إمانتي ولا ليالو aan joojino aan ka fikirno aan isbedel sameyno hadda 30 sano soo dhaafay isku sii ahayn wax aan isbedelna ma laha saan kuma sii socon karno waa 2 sano wax inay iska bedeshaan waxyaabo inaan fahanna oo isku taybin karnaa oo iska bedeli karnaa qaaq inuu qofka soo dhaho maaha haduu ariga fikradiisa ka duwan waa kala fikradnaan duwan karnaa fikrad kastana faa'iido inay ku jiri kartaa dhici karto fikrad kasto fiiri waa lay fikrada adaa ku nool iyada kugu ma noolo marka insha Allah
qisada gabadha aan idiin sheegayna waa soo dhigi doonaa dhegaysta pageka taga fiiriya dhegaysta talana siiya insha allah gabadhaas qiso hadda taagan waaye waxaa kaloo idiin rajeynaa insha allah in tan camal aan ka fiirsano ilmaha please and please markasta ilmaha aan ku fikirno ilmaha haddii noqoto xataa inaa adiga ilmahaaga ma aragtay for their own benefit adi dhibaato ku gaarto please and please do that dhibaatada ku gaaraysan ayay noqon mid ayaga kusoo noqoto for example dhibaato adigoo maxay ahayd isdhehaysid isgeeji ilmahaaga hayso naagmo iska dhig ilmahaaga adoo isdhehaysid ilmo maskiimiin ah ha dhaawicin dhaawac ha u gaarsiinin ha maxay ahayd maskaxiyan ama qalbiyan ama maxay ahayd jismiyan ha u dhaawicin please and please ilmaha futurekooda ka feker adiga naftirkaana isku fakir dumaraan nahnay howl badan iyo qarrac badan ilaahay nooguma talagelin cid noogu talagashayna malaha soomaalida societygeena booska dumarka aan ka taagan nahnay waa booska ugu adag aan taagnaan karno laba siyaaboodna wayna geysay siyaabada koowaad waxaa waaye rag oo booskooda dayacay anagii markaas aan ku qasbanaanay inaan buuxino ta kaleetana waxaa waaye anakiyo rag iska dhicis iyo isla qaabweynin iyo masculine energy nagu jiro dagaal iyo difaac badan ku jirno please and please hubka ha aan dhigano walaalaan nahnay hubka ha aan dhigano wixii wanaag isku fahmi kara falilaahi alxamd wixii wanaag aan isku fahmi karinne cooska meesha yaalo hala ilaaliyo cooska meesha yaalo aan birina anfacayo coos fiican oo qurux badan si oo noogu dhashto hadda halkaas anoo fiirnay arkaysiin miyaarada fiirinaya inaa weli kaamarada ay shaqeynayso iyo inaa ma aragta ay dantay indhaha ku haya ay ka raali noqdo marka coos fiican oo caafimaad qabo oo qurux badan oo cagaaran biri si oo noogu soo bixi lahaa xurgufta badan aan iska dayno hubka aan dhigno insha allah taas waa talo iga socoto wixii aa isdhehaysiin waa ku darsan lahaydeenna waa ku darsan kartiin oo qaybta comment waa idiin furan yahay qofkii igu fikrad ahna ila soo qaybso qofkii iga fikrad duwanna waa ku soo dhaweynaa because kulligeena isku fikrad ma noqon karno insha allah tacaala tanna waxaa waaye bilowgii Caaisha is back biidni illaahi tacaala hadda iyo futureka isla joognaa biidni illaahi tacaala jeclahay walaashina Caaisha idin dhehaysa mar kasto fi amaan illah